بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Welcome. I'm Dr. Abdul Nasser Mohammed, consultant of ENT in Kalkal Hospital. Today endoscopic tympanoplasty was done for atelectatic and perforated tympanic membrane, and the patient was good. isbitaalka Kalkal gaaraan qaybtiisa Unaasanka ENT waxaan u soo booqday bukaan ka cabanayay dhagax xanuun muddo dheer kaasoo lahayd qoyaan maqalkiisana uu yaraaday marka baaritaan iyo dheeraad ku sameynay iyo maqalkiisa cabirna waxa ogaanay in otoobka ka dilacsan yahay soo saddex maanta waxa u sameynay qaliinka oo endoscopic tympanoplasty kaasoo iyadoo loo sameynayo xoog lagu celinayo asaga oo laser loo isticmaalayo oo na la jeexin alxamdulillah bukaanka hadana waa caafimaad qabo fiican yahay qaliinkiisana loo guuleystay.